bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamka waxa ugu dooron Itoobiya oo warqad degdeg ah ka heshay madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaana qadka telefoonka kula hadlay sida la sheegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar ayaa nin la dhashay waxa la sheegay in weerar dhaawac ah mindi loogu geystay magaalo ka tirsan dawladda deegaanka Axmed Qoorqoor hogaamiyaha Galmudug oo ku jeesjeesay ahlu sunnadii la maqaarsiibay nuxurka fariinta uu diray iyo bil kadib doorashadiisii maxaa u qabsoomay laba askari oo maanta lagu toogtay Muqdisho iyo amniga oo hadda u muuqda mar kale inuu faraha ka sii baxayo magaalada Xamar cabsidii ugu weyneed oo Soomaaliya soo gashay cudurka coronavirus-ka deegaanada Somaliland waxa durbaba laga bilaabay baaritaan dadka dhammaantood lagu sameynayo deegaanada maamulkaasi agaasimo wasaaradeedna shaqada ayaa laga eriyay maanta xilli madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Lafta Gareen uu safar degdeg ku gaaray degmada Diinsoor qodobka dibaddana waxa ugu dooron madaxweynaha arrimaha xaramka ee dalka Sacuudiga qaariga caanka ah ee Sheekh Cabdiraxmaan Sudaysi iyo waliba culimada kale oo baaritaanka cudurka COVID-19 iyagana la mariyay u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan aan ku bilaawno wararka naga soo gaaraya dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay sheegayaan in halkaas lagu dhaawacay nin la dhashay madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar waxaana ninkan lagu magacaabaa Cabdiraxmaan Maxamed Cumar koox hubaysan oo toori watay ama mindi ayaa la sheegay in saacado ka hor ay Cabdiraxmaan Cagjar ku dhaawaceen magaalada Dhagaxbuur ee dawladda deegaanka qaybta ka ah wararka waxay sheegayaan in Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo la dhashay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida weerarkaas uu ka soo gaaray dhaawac haddana lagu daweynayo xarun caafimaad oo maamulka magaalada Dhagaxbuur ay gacanta ku hayaan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay weerarkan iyadoona ninkii fuliyay uu isku dayay inuu baxsado laakiin gacanta ay ku dhigeen ciidamada ammaanka ee liyu booliska wararka waxay intaasi ku darayaan in haatan baaritaano dheeraad ah laamaha amnigu ay ku hayaan ninkaas si loo ogaado qorshaha uu ka lahaa weerarka uuna doonayay inuu qaarajiyo dhacdadan ayaa ah mid ku cusub deegaanadaasi iyadoona aad looga hadlayay maanta Talaado ahayd magaalada Dhagaxbuur ninkan la dhashay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar oo isagana lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Cumar Cagjar dacwadda Itoobiya loo gudbiyay ee madaxtooyada Soomaaliya waxay daaraneed ayaan fiirinayna madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa la soo sheegay in dacwad uu u gudbiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali dawladda federaalka ayaa dacwadan waxa ay ka gudbisay Kenya iyadoona kaga ashtakoonaysa dawladda Itoobiya waxaana madaxweynaha dalka wararka laga helay xafiiskiisa ay inta raaciyeen inay muhiim tahay in si degdeg ah wax looga qabto dhaqanka ka hor imaanaya madax banaanida ay Kenya kula dhaqmayso Soomaaliya ila xogogaala ayaa waxa ay sheegeen oo ka tirsan madaxtooyada in madaxweyne Farmaajo uu qadka telefoonka kula hadlay Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya waxaana uu ku wargeliyay in xadgudubyada Kenya uu sii kordhay muddooyinkii dambe taas oo Soomaaliya aysan u dulqaadan karin wixii hadda ka dambeeyay loona baahan yahay in si degdeg ah aan waxba haddii aan looga qaban ay tallaabo kale ay qaadi karto Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa Abiy waxa uu sheegay in Kenya ay gacan siinayso maleeshiyaadka taabacsan sida warkuu yiri Axmed Madoobe oo abaabul dagaal ka waday muddooyinkii dambe qaybo kamid ah magaalada Mandheera oo shalay ciidanka dawladdu ay kala wareegeen xerada BB1 oo dhanka balad xaawiye Mandheera u dhaxaysa taasoo sabab ka dhigtay in Cabdirashiid Janan iyo xubnaha ciidanka Jubbaland ee la socday in la isugu geeyay xero military oo ku taala Mandheera oo ay dawladda Kenya maamusho ciidanka Kenya ayaa la sheegay in shalay dagaalkii ka dhacay magaalada balad xaawiye iyo Mandheera inta u dhaxaysa ay madaafiic kaga caawinayeen wasiir Janan iyo ciidanku hogaaminayay inkastoo markii dambe lagu jabiyay dagaalka madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horey wuxuu u sheegay in Kenya ay faragelin qaawan ku hayso madax banaanida Soomaaliya hase ahaatee Kenya ayaa shalay Isniintii waxa war ay soo saartay been abuur ku sheegtay wararka ka imaanaya filla Soomaaliya ee ah inay madax banaanida Soomaaliya ku xadgudbayaan
toogasho ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho oo 2 qofood ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay isgoyska ex control afgooye waaxda canshuuraadka ay ka tirsanaayeen dowladda hoose ee xamarar waxaana dilkooda fuliyay rag bistoolada ku hubaysana sida la sheegay kadibna dilka waa ay ka baxsadeen meesha goobjoogayaashu waxay inoo sheegeen in meydka askarta laga qaaday goobta daqiiqada ay yaaleen iyadoona isku socodka uu hakad galay inkastoo muddooyinkii dambeba ay xirneyd wadada ex control afgooye ka baxday ee dhanka afgooye la aado haddana waxaa weerarkan uu ka dhigan yahay mid amni darrada si laba jibaarinaysa muddooyinkii dambe muqdisho ururka al-shabaab ayaana inta badan weerarada noocaana sheegtay inkastoo weli aysan ka hadlin dilkaas maanta ka dhacay isgoyska ex control afgooye ciidamada dowladda ee ku sugnaa isgoyskaas ayaana howlgal aan badnayn halkaasi ka sameeyey inkastoo markii dambe ay xaaladda ku soo laabatay mid caadiya dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa muddo kadib tan iyo doorashadiisii lagu arkay qalabka warbaahinta waxaana uu xaflad casho sharaf ahayd u sameeyey xildhibaanada baarlamaanka galmudug wuxuuna kaga mahad celiyey muddo kordhinta ay u sameeyeen in 30 cisho uu golaha wasiirada kusoo magacaabi karo axmed qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii ay ku heli lahaayeen doorashada ku aadan galmudug ka badqabta wax kasta oo keeni kara in isku dhacyo iyo weliba hanaan qabiil waxaan ka shaqaynaynay howlihii galmudug ugu muhiimsanaa kuwa horyaal oo ay ka mid ahayd dib u heshiisiinta isu doonidda isu jiidjiidka isqaadashada isu gogolgelidda taasoo aan meel walba iyo cid walba xiriir iyo wadahadal iyo walaalnimo aan u bandhignay xaalad kasta oo lagu jiray waxaan ku dhex wadnay ama xaalad kastoo jirtay waxaan ku dhex wadnay inaan mar walba muujinno wadajirka iyo wadahadalka iyo isu sabarka iyo isu tanasulka galmudug u baahan tahay waxaan rabaa halkaa inaan mar labaad shacabka galmudug meel walbay joogaan aan ka codsado inaan inta dhiman midnimo wadajir iyo gacmahoon isqabsanno aan ku dhammaystirno insha allahu tacaala qoorqoor ayaa dhowaan xafladiisa caleemasaarka ay dhici doontaa kadibna waxaa la leeyahay golaha wasiirada ayuu soo magacaabi doonaa waxaa wararka ugu dambeeya aanu helayno ay sheegayaan in axmed qoorqoor hadda uu kulamo ku kala xulanayo sidaa la sheegay golaha wasiirada uu soo magacaabayo uu ka waday magaalada dhuusamareeb muddooyinkii dambe cabsida tii ugu xooganayd ayaa hadda soomaaliya soo food saartay taasoo ku aadan cudurka coronaviruska taasi oo la leeyahay cudurkan meelo badan ayuu hadda kusii faafaya wasaaradda caafimaadka soomaaliya saacado ka hor warbixin ay soo saartay waxay sheegtay in ilaa haatan laga badqabo cudurka allaha naga haye hase ahaatee dhakhaatiir ay somalilan diyaarisay waxaa durba ay ka shaqa bilaabeen dhammaanba deegaanada somalilan ay xukunto si baa layidhi dadka looga hubiyo cudurka coronaviruska meelo badan ayaana deegaanada somalilan dadka laga baarayey si baa layidhi looga hubiyo cudurka inuu deegaanadaas soo galay iyo in kale aad ayaana dadka ay werwer u dareemayaan maadaama dalal ku yaala africa uu cudurka hadda soo gaaray sida senegal iyo weliba nigeria oo dhowr qofood lagu arkay sidaasi lamida waddanka morocco ama maqribka loo yaqaano ayaa lasoo tabiyey in cudurka coronaviruska dad qaba lagu arkay saacadihii lasoo dhaafay shiinaha ayaa sanadkii hore dhammaadkiisii bishii disembar markii ugu horreysay uu cudurkan ka dilaacay 90,000 oo qof ayaa dunida oo dhan cudurka uu saameeyey haba ugu badnaato dowladda shiinaha oo weli la tacaalaysa dhowr kun oo qofood oo la leeyahay cudurka ayaa sariiryaal ay la noqdeen sidaasi lamida waddanka koonfurta kuuriya ayaa ah kan labaad iyadoo kan saddexaadna dalka shiinaha iyo koonfur kuuriya marka laga soo tago u noqday waddanka jabaan soomaaliya wasaaraddeeda caafimaadka waxa ay warbaahinta iyo qalabka kale ee bulshada wararka lagu tabiyaba uga digtay in iyada warbixin aan ka soo bixin aan lala wadaagi karin bulshada si aan qalqalgelin loo abuurin cudurka iyo weliba cabsida laga qabo gudaha soomaaliya agaasimo wasaaradeed ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lasoo sheegayaa in shaqada laga ceeriyey maxamed cali xasan ayaa shaqo joojin lagu sameeyey waxaana uu ahaa agaasimaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed war ka soo baxay wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed lana ogeysiiyey madaxweynaha koonfur galbeed wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas ayaana xilka looga qaaday agaasimihii wasaaraddaasi maxamed cali xasan ayaana lagu sheegay xilgudasho la-aan iyo inuu dayacay howlo shaqo oo muhiim ahaa oo siminaar loo diray ah islamarkaana dalka dibaddiisa
iyadoona ugu dambeyntii la sheegay in booskaas qof kale loo magacaabi doono. dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta waxay gaareen magaalada diinsoor ee isla gobolka baay. safarka magaalada baydhabo ayaa ay kaga ambabaxeen diyaarad, waxaana la sheegay in mas-uuliyiinta maamulka diinsoor iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaas ayaana garoonka diyaaradaha diinsoor kusoo dhaweeyey wafdigan madaxweyne laftagareen. ujeedada laftagareen uu halkaasi u gaaray ayaa la sheegay kulamo uu la qaadanayo mas-uuliyiinta maamulkaasi iyo weliba xafladda caleemasaarka maamulka cusub ee degmadaas oo dhowaan la doortay uu ka qaybgeli doono. diinsoor waxay ka mid ahayd meelihii ay ku xooganaayeen ururka al-shabaab, laakiin muddooyinkii dambe koonfur galbeed ayaa gacanta ku haysay. guud ahaana daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayna wararka soomaalida iyo caalamka.